casharkeennii hore waxaanu samaynay insertkan soo eegnay qaabkan ugu soo darayna wax cusub data cusub laakiin datada cusub qaabkan ugu soo daraynay laba system aanu eegnay in meesha gudaheeda aan ku dhex isticmaalno insert gudihiisa functionka iyo in array soo samayno dibadda aan ugu soo xidhno hadda waxaan eegaynaa haddaba insha allahu tacaala si intaan form samayno formka aan datada uga soo qaadan lahayn waxaan leenahay markaa halkan inoo xidhintan waxaan leenahay markaa formkaasi methodkan doonayna waxaan siinayna waxa weeyaan post kadib waxaan leenahay markaa halkan input baan doonaynaa texta namekiisuna yahay user name kana wuxuu noqonayaa user password waxaa noo imanayaa activekii baa inoo imanayaa ka waxaan isticmaalaynaa select baan isticmaalaynaa select waxaan leenahay markaa user active waxaan leenahay markaa waxaad noo adeegsataa option midna waa one oo waa active weeyaan macnihiis ayaad siinaysaa midna waa two oo waxaad inoo siinaysaa non active markaan hadda soo refresh garayno pagekeenii waxaad arkaysaa wixii baynu hal line ka dhigay waxaad ka dhigi karaysaa limamis hoos yaalla adigoo markaa isticmaalaya break isticmaalaya mid walba break baad u isticmaalaysaa waxaa inoo hadhay markaa submit isaga waxaan leenahay markaa inputkaasi wuxuu noqonayaa waa submit weeye add new record ayuu noqonayaa namekiisuna wuxuu noqonayaa add record markaa dhammaantood ba iminka wis hoos dhigay laga reebo kan laga reebo kaana waxa weeyaan ishkaalkiisu select kan isaga noo keen markaasaas isoo hoos dhigay haddii aad doonaysid markaa inuu siiyo iyo quruxnaada waxaad ku qoraysaa halkan bootstrap for cdn zero automatica waxaan leenahay halkaaba ku sameyo iska cad weeyaan kadibna waxaan leenahay waxaad samaynaysaa card haddana waxaad samaynaysaa card body intaa markaan samaynay ka sokow ayaa waxaan leenahay break oo dhan ka saar meesha importadan kuwa name waxaan siinaynaa halkan class baan siinaynaa form input form control afwan kan laakiin isaga noqon maayo control wuxuu noqonayaa btn danger btn isna danger intaa ka sokow markaan samaynay wuu ballaaranaya hadda markaan soo refresh garayno wuu ballaaranaya xaashidoo dhan buu qabsanaya si aan taa uga baxno kaarka ayaa waxaanu siinaynaa column baan leenahay markuu yar yahay waxaad siisaa 12 markuu deviceku middle-ka yahayna mid markuu yahayna waxaad inoo siinaysaa 5 inoo sii margin-kiisuna waa auto marka bartamaha ayaan doonaynaa inuu inoo keeno inoo yareeyo waxaad arkaysaa iminka inay aad isu dhow yihiin waad kala saari karaysaa adigoo form control ka raacinaya inaad ka dhigtid markaa btn ama margin top waxaad leedahay mid kasta one baad siinaysaa uu kala fogaadeen iminka kan hoosun baa inoo hadhay isaga waxaan leenahay saas oo kale xaggan isna inoo sii bottomka aan yar ballaadhino isaga aan meeshaba laakaysiino gebiisaba inagoo markaa siinaynaa call 12 u dheeraanaya markaa hadda asaantii halkaa 5 kan bedelinayo 3 baan ka dhigaynaa inoo yaraato formka inoo yaraado kaamka saasuu inoo noqday si hore u yar dhacmaa imika
halka markaa username baan gelinaynaa halkana passwordka iyo halkana active ka doonayna halka waxaan gelinay Khalid xagana waxaan gelinay Khalid 1 2 3 4 5 6 space ka saar passwordkii waana active waxaan doonaynaa badinka markaan gujino inuu shaqadii inoo qabto waxaan sameynaynaa haddaba namekiisii arjig buu ahaa xaggan sare tegaynaa waxaan leenahay if set post ka la yiraahdo aad record hadda ka la gujiyo haddii ka la gujiyo waxa ka maqan bracket kale haddii ka la gujiyo shaqeeyno qabo shaqadaas waa maxay array baan leenahay marka hore add array equal array weeye markaa waxaan doonaynaa markaa username-ka waxaan leenahay waxaad uga soo qabsanaysaa baan leenahay post ka la yiraahdo username afwankaas saas noqon maayo wax noqonaya mid walba qowskaas noqonaya ama hakadkeeda noqonaya waayahay user name-ki waa sameynay use password-kuna saasuu noqonayaa use active-kuna isna saas ayuu noqonaya intaa markaan sameynay kadib waxaan leenahay add new record oo isagu wuxuu noqonayaa markaa waxaan soo qabsanayaa si casharkeennii hore ku eegnay connection insert waxaan wuxuu naga doonayaa halta inoo ka fur arraygii marka wuxuu naga doonayaa table name-ka inaan bixino table name-ku wuxuu weeyaan baan nidhi users waxaa inoo imanaya hadda argument-ka labaad oo values ah values-kuna waxaan nidhi waxaan kasoo qabsanayaa add new array-ga halkaasuu kasoo qabsanaya datadiisa bismillah intaa markaan gujinay waan leenahay add inoo soo refresh garee waxaad arkaysaa inuu nagu soo daray Khalid 1 2 none ama 0 buu yidhi sababtu xagga 0 uu sheegay waxaan u khaladnay waxa weeyaan user name-ku halkan ka dhignay mid kale aan kusoo daraynaa haddaba nuur baan leenahay waa passwordkiisuna waa jama waana non active waayahay iminka waxaad arkaysaa inagu soo daray nuur iyo jama iyo non active oo tuubiya marka saasaad arkaysaa iminka inuu inagu sameeyey markaan isticmaalaynay formkii ama datadii kasoo qabsanay